hooyada dhashay madaxweyne Biden ayaa iska diiday inay ku seexato sariir ay saacado kooban ku jiiftay boqoradda Ingiriiska. Jean Finnegan waxay door biday inay dhulka jiifsato si ay u difaacdo qadiyadda qarankeeda, weliba iyadoo quursanaysa Queen Elizabeth, boqoradda awoodda badan ee ay sanadaha qaadato inay la kulmaan hogaamiyeyaal saameyn ku leh caalamka, halka kuwana iyagoo sugaya inay soo aqbasho codsigooda ay xilka iskaga degaan. Hooyada dhashay madaxweynaha Mareykanka xilligaa waxay awooday inay lacagteeda isticmaasho oo hotel u guurto, balse mabda'ii ay ka dhaxashay awoowayaasheed waa kala weynaa raaxo muddo koobana. Si ay taariikh u reebto ayay 6 saacadood u huruday darin dhulka lagu fidiyey. Ma jirin xurguf siyaasadeed oo dhex tiilay Jean Finnegan iyo Queen Elizabeth. Haddana isirka Irishka oo ay ku abtirsato hooyada madaxweyne Biden ayaa hoy u noqday dhacdadan. Gumaysigii boqortooyada aan qorraxdu ka dhicin wuxuu abuuray isir nacayb muwaadiniinta Irishku ay u hayaan boqortooyada, kaasoo ka soo bilowday duulaankii Angola Norman ee Ireland lagu qabsaday. Sheekadan ayaa warbaahinta caalamka qabsatay kadib markii madaxweyne Joe Biden uu waraysi ku sheegay nacaybka qotada dheer ee hooyadii ay u hayso boqortooyada Britain. Warkan lama filaanka ayaa hadalhayn badan ka abuuray gudaha dalka Ingiriiska xilli ay u riyaaqeen dadyowga ka soo jeeda qowmiyadda Irishka. Jean Finnegan, hooyada dhashay madaxweyne Joe Biden ayaa geeriyootay sanadii 2010 iyadoo 92 jir ahayd. Mase nasiib xumayn oo dunida waxay macsalaamaysay iyadoo wiilkeedu uu yahay ku-xigeenkii madaxweynihii 44aad ee Mareykanka Barack Obama. Jean Finnegan waxay lafdhabar u ahayd darajo walba oo wiilkeedu uu ka gaaray nolosha ilaa uu ku fadhiistay kursiga madaxweynenimo ee Mareykanka, mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan caalamka. Hooyadii buur dheer ayay kala soo baxday wiilkeeda Joe Biden oo yaraantiisii jiroole ahaa, waxayna iyadoo xanuunkiisa xal u raadinaysa mar u qaaday Pennsylvania oo ay ku dhalatay. Sida ay sheegtay qoraaga caanka ee Georgia oo u dhalatay dalka Ingiriiska, hooyada dhashay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ka soo jeeday dalka Ireland ayaa nacaybka ay u qabto boqortooyada Ingiriiska waxa ay ka tirisay gabayo ay alle uga baryayso inuu Ingiriiska siiyo roob dhibco dhiiga leh ama in la arko London oo mar uu cadowgeedu dhulka la simay. Sida uu daabacay wargeyska The Guardian oo ka soo baxa dalka Ingiriiska, gabadhan qoraaga ayaa ku sheegtay buug ay uga hadlaysay taariikh nololeedka Joe Biden hooyadii in madaxweynuhu uu caddeeyay in hooyadii ay door biday inay dhulka seexato halkii ay seexan lahayd sariir ay horay ugu jiifsatay boqoradda dalka Ingiriiska. Tuduc ka mida buugga ayaana lagu yiri, hooyaday waxa ay degtay hotel loo soo bukin gareeyay. Waxay ahayd markeedii ugu horeysay, laakiin lama filaan aan farxad gelin ayay la kulantay. Maamulaha hotelka ayaa u sheegay in sariirtan ay hadda koor ku seexatay boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth, balse habeenkii hooyaday dhulka ayay seexatay halkii ay seexan lahayd sariirtii boqoradda. Nacaybka ay u qabto boqortooyada awgeed ayay qoraaga Georgia ku soo gabagabaysay nuxurka waraysigii dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Gabadha qoraaga waxay kaloo xustay in hooyada iyo aabbaha dhalay Joe Biden ay labadooduba asal ahaan ka soo jeedaan dalka Ireland oo ay aad u neceb yihiin boqortooyada Ingiriiska, si la mid ah muwaadiniinta Ireland oo taariikhdooda ay ku suntan tahay gabood falladii laga galay intii uu socday xukunkii gumaysiga ee boqortooyada Ingiriiska. Inkastoo fagaarayaasha siyaasadda aan aad looga aqoon Jean Finnegan, haddana wiilkeedu waxa uu daha ka fayday in hooyadii ay ahayd suugaanyahan aad u ikhtiraacaa gabayo wadani ah oo u hiilinaya qarannimada Ireland. Waxaa loogu bishaaraynayaa dadka jecel barashada Quraanka Kariimka iyo culumta shareecada Islaamka in markaska Al-Irshaad Islamic Online uu qaadanayo arday cusub. Waxaa lagu bari doonaa Quraanka Kariimka, luqadda Carabiga, tafsiirka Quraanka, axaadiista Nebiga iyo siirada Nebiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaana kuugu diyaara mashaayikh diinta looga dambeeyo. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.